maanta waxaan ka hadlaynaa xildhibaanada Soomaalida ama sida u taqaanaan ardayda ku jirta filla Soomaaliya taasoo arrintan ku saabsan tahay maanta Buale Aid Media ay soo qaateen qaybta ka mid ah Soomaaliya oo nin muwaadin oo Soomaali ama daacad uusan geli karin ama uusan banaankeeda istaagi karin markaa fiiriso derbiga waa derbigii lagu lugooyay Soomaaliya ama say u yaqaanaan dad badan oo Muqdisho joogo derbiga waa garanayaan cid alla cid Muqdisho joogto horta derbigan adduunyo kala ka dambayso adduunyadaas oo tahay inay iskugu imaadeen dad lugooye ah oo Soomaali u soo shaqo tagay war derbiga gadaashiisa markaa marto waxaad la kulmaysaa adduunyo kala nin muwaadin oo Soomaali oo maanta geli kara ma laha meesha banaanka derbigana markaa aragto kuleelka gaajada dhibaatada rafaadka ma malaysan kartid horta derbiga waxa gali kara qolada tuugada ah ama rufyaanada ah ama hay'adaha u shaqeeya ama NGO-yada ah ma jirto maanta nin Muqdisho jooga ama Soomaali jooga ama muwaadin Soomaaliyeed ah oo daacad ah oo derbiga gali kara Soomaaliland derbiga loo dhistay Soomaalida waxay isku jijiidayaan qabiil ana ka badan 0.5y 0.2y xildhibaan aan noqonay ra'iisul wasaare aan noqonay laakiin Soomaalidii meesha ay maanta laga xukumaayo ama laga maamulayo waa derbiga kullay cid alla cid Soomaali joogo way taqaanaa derbiga waa meesha laga gaday qolada NGO-yada ah ama ajnabiga oo loo yaqaano xalanle cid walba Soomaali joogto waa taqaan xalanle iyo waxay ahaan jirtay laakiin waxaad ogaanaysiin maanta xalanle Soomaali kama tirsano dad xildhibaano oo tuugo oo qabqabla gatay war xildhibaan gali kara ma leh xalanle markaad meesha gasho waa adduunyo kala barafka qabowga raaxada cuntida wax walba adduunka dhan war dhulka hoostiisa degayn dhulka hoostiisa dhaqaalaha ay meesha ku haayaan ama ay ku dhisteen ama ay ku raaxaysanayaan maxaa lagu soo qaaday Soomaaliya ay dhibaato ka jirtaa Soomaaliya ay abaar ka jirtaa Soomaaliya dagaal ka socda Soomaaliya dib loo habeynaya laakiin markaad ogaato derbiga waxa ka dambeeyo tan waa Soomaali kale waa adduunyo kale marka waxa ka doonaynaa ardayda ku jirta filla Soomaaliya oo maanta ku mashquulsan say ummad kale ku gumaadi lahaayeen ama xaqooda ay ugu tuban lahaayeen ardaydaas waxay gateen derbiga dad baa soo boodaya maanta waxay ku leeyihiin Kenya waxay dhahday malaay baan u baahannahay qaadkaan idinku bedelaynaa Kenya waxay dhahday malaay baan u baahannahay qaadkaan idinku bedelaynaa war hadduu qaad soo galo iyo haddii malaay lagu bedelo iyo haddii wax lagu gato war adiga horta magaalada aad joogto Muqdisho ah derbiga gadaashiisa ma aragtay wax shakhsi ama xildhibaan ama Soomaali oo derbiga gadaashiisa gali kara ma jirtaa waa maya Soomaali dhan meesha laga hagayo meesha laga lugooynayo waa derbiga you know why Soomaali hadday dawlad noqoto oo hagaagto oo sharci qorato oo xuquuq ka jirto oo cid la dulma aysan jirin oo Soomaalida dawlad dhistaan derbiga waa dumaya ciyaalka Soomaalida ayaa wax ku baran lahaa derbiga waa dumaya iskuulaad baa laga dhigan lahaa waxba laga dhigan lahaa laakiin derbiga dadka ka dambeeyo ma rabaan inay Soomaali hagaagto ma doonayaan inay Soomaali hagaagto Soomaali waayo hadday Soomaali dawlad noqoto oo constitution ama saa u taqaan sharci ay qorato derbiga waa baxaya jaamacadii hore ku soo noqonaysa xalanada ama maqlas laakiin maanta dad baa laga gaday war waxa ka socda mantaqaan derbiga gadaashiisa cariya sheey gar hal xildhibaan oo hal maalin gala xalan war waxaan bal yaabanahay waxa lagu leeyahay doorasho la qabanaya Soomaaliya doorasho ka jirta teendada afisyoon war adi fiiri marka teenda doorasho afisyoon iyo balaa iyo xalan la ku qabsanayso war wadankaada joogtaa adoo wadankaada joogo say u dhacday inaad teenda doorasho ku qabatay ilaa wadankiiba qaxootiyaaba ku tahay bal ii sheeg adduunyada dad wadankoodii joogo oo teenda doorasho ku qabsanaya war adduunka ma ka dhacdaa
waa may taasi waxay ku tusaysaa xalanla in laga xukumo war villa Soomaaliya looma ilaaliyo sida xalanla loo ilaaliyo war muwaadinka Soomaaliga looma ilaaliyo sida xalanla loo ilaaliyo war maxaa ku jiro adi markaa waddankaada joogto oo hay'adihii iyo NGO-yadii aad dadkaadii iyo shacabkaadii aad ka saraysiiso ood isku da'do inta dadka wax gaarayaan anaa dhimanaya ood dhagax u dhistood meesha ka gada wixii ka socdo ma ogi war madaxweyne maada farta loogu yeeraaniyo soo soco lagu dhahayo soo soco halkaas laga xukumo annaga maanta xilin dawlad horta hadaba su'aal baan weydiinaya waayo sideedaba guriga qayaano lagu dhiso qayaano ku dhamaada inta koor baa waxa jiri jirtay Soomaali niman ganacsada ah oo ilaa hadda qaarkood ay joogaan qaarkoodna ay hanti la'aan ku dhacday ileen qayaanadii yaa badatay waxay sameyn jireen lacag fake ah ileen Soomaali lacagteeda waxa lagu soo sameyn jiray meesha la dhahaa Singapore intay lacag dollar qaadaan oo Singapore tagaan ayaa waxa loo soo sameyn jiray 1,000 shilin oo lacagta Soomaaliga ah ayay container kala soo degi jireen dekada markay containerada la soo degaanna waxay ku bedelan jireen dollarka ilaan lacagtii waa lacag qashin si ay u bedelaan markii dambe waxaa dhacay dad ganacsada inay lacagtii soo sameystaan markay Muqdisho keeneen ay ku qasaareen marka sideeda waxa loo baahan yahay hadduu business yahay ama hadday dawlad tahay waxa inay buug ku qornaadaan in buug lagu qoro constitution waayo hadda maanta ninka hogaaminaya ama ninka siyaasadda wado hadduu dhinto ama hadduu ka tago meeshayba ku hartaybano buug la raaca ma laha sharci qoran ma laha wax ka jira ma jirto marka waxaa idin sheegaya Soomaalida inay iswareerinayo horto Kenya iyo Malay ka baxa Kenya hadday Malay qaadatana ayada u taala hadday gadatana waa business laakiin waxa ogaataa markaad leedahay qaad baa Malay lagu bedelaya adiga horta badda ma ka warqabtaa waa badda maanta cid ku jirta ma ka warqabtaa badda ka hadlaysaa Malayaad ka hadlaysaa wala xalan ma taqaan meesha marka Soomaali waxa idin sheegaya ardaydan oo lugooyada ah oo Soomaali lugooyay hadda waxa lagu leeyahay xildhibaan baa Muqdisho ku jira villa Soomaali war xildhibaanadan waxay qabtaan ma ii sheegi kartaa 370 xildhibaan waxay meesha u soo fariisteen inay miinshaarkooda qaataan mid walba wuxuu soo xirtay bahalka saa u taqaan bahalka mid walba wuxuu soo xirtay bahalada maxal dhahay garabeeto maal dhaamo tay maal dhaamo bahaladana laga soo gaday ayagoo fake ah Turkiga laga keenay ay qoorta ku soo wada xirteen ku xildhibaan baan war hadi xildhibaan baa tahay 370 ku jirto waxay qabtaan ma ii sheegi kartaa maya miishaarkooda kaliya ay qaataan marka hadi xildhibaan oo hadii lagu soo doorto inaad miishaarkaada qaad maxaad u qabato Soomaali waa maya waddanka shaqo ma laga abuuro waa maya war Soomaali waxa ku filan Soomaali oo dhan waxa ku filan 4 warshadood oo ganacsato contract lala soo galo dhismo iyo waxyaabo iyo dhaqaale iyo waxyaabo soo saara ku filan Soomaali oo dhan ay shaqaaleen karaan waxaan la iska dab wareeganaa midda labaad dawladana lacag lahayn iga sheeg adiga markii boorso lacag lagu keeno oo boorsadii xildhibaanada u qaybisa maxaad u soo faa'iideysay waddanka doorasho la galaya lagu leeyahay madaxweynaha la dooranaya lacagtii boorso lagu keenay ayadoo deen tahay oo Soomaali lagu qoray deenta cunuga dhalan doona 50 sano soo socoto deentaas uu gudaya lacagta lagu siinayo free ma aha marka lacag boorso lagu keeno 370 xildhibaan aad u qaybiso oo ay qaataan maxay qabteen waa may marka meeshii waxa noqotay meel sida oo qoladii la dhahay daroogada gadi jirto kala maartay lacagta qaybsan jirto tuugada ah maafiyada ah marka wadanaana lacag lahayn maanta haday dawladda aqal leedahay aqoon leedahay maanta waxay qornayaan constitution lacag bay sameeysan lahaayeen lacagtooda ka socon lahayd waddanka uma baahnaan lahayn lacag kale bal ii sheeg dawladda aan maanta lacag lahayn aan Soomaali ka ahayn 1,000 shilin oo 1990 soo baxay ilaa hadda wareega 1990 1,000 shilin oo Kenya oo Soomaaliya ugu dambeysay ayaa socdo wali qaarkood dad ganacsada ah intay lacag fake soo sameeyaan waxay xadi jireen saxiixii dawladii hore oo 1990 loogu soo qori jiray Talyaaniga lagu soo sameyn jiray Singapore lagu soo sameyn jiray dad ganacsada ku qasaaray tiyaa wali wareeganaysa oo lacagta xooshka qashinka bal ii sheeg dawladii lacag ma laha
constitution ma laha waxaa jira ma laha dowladda waxaa laga xukumaa derbigaa haddaad bannaanka baxdo derbigaa ummadda gaajaysan ama ummadda rafaadsan iyo kuleelka jira iyo dhibaatada ma malaysan karta derbigaa wixii ka dambeeya marka waxaan u sheegaynaa ardayda ku jirta villa Soomaaliya inaysan Soomaali wax u qaban doonin haddii laga saari waayo ardayda fiiri meesha derbigaas ay ku jiraan fiiri waarta waxaa loogu talagalay xildhibaanada feega ah waa kaa ummadda Soomaali joogto derbiga ka dambaysa war xalan low Soomaali waxaa u sheegaya xalanla inaysan Soomaali ka tirsaneen waayo xildhibaanada tuugada un baa geli kara ee qabqablayaasha tuugada isku sheegaya siyaasiyiinta kani waa bu'aale 8 milyan waxaanu ku soo qaadan doonaa qaybtii labaad oo ku saabsaneed derbiga loo sameystay Soomaali sida border war magaalo madaxdaada capital city-ga magaalo madaxdaada ayaa waxaa loo sameystay derbi ama saa u taqaana border ama xuduud war derbiga dhererkiisa intuu dhan marata xalan la lagu leeyahay Soomaali ma ka tirsanaba xalanada lagu sheegay annagana maanta waxaan isku haysanaa qabiil hebel dhahay yiri hebel war xalanna Soomaali ma ka tirsano dad baa gatay carwa ka ma jirta qof muwaadin oo Soomaali oo wadanka u dhashay oo daacad ah xalanla intuu taga ha soo eego si walba loo baar ma gali karo war waxaad u malaynaysaa malakamoodkii soo socday in derbi loo dhigay taasa ka dhaadhacsan markaasay ku leeyihiin balaa dawladan war adiga wadankaada dhaxay maanta waxaa loo baahnaa hay'adaha ajnabiga imaadeen inay hoteelada Soomaali seexdaan inay meelaha kireystaan qarashka ay wadaan inay ku bixiyaan laakiin haddii dhulkaadii la dhistay border lagu dhigay maanta hadday Soomaali dhibaato ka dhacdo xalan lama soo gaarayso waayo Soomaaliya loo dhigay ayada derbi kani waa bu'aale 8 milyan waa isku soo noqon doonaa ardayda ku jirta villa Soomaaliya iyo cidii ku faanta qabiil iyo jinni adeero magaaladii aba la qaybiyo laba marka taasi waxaad ogaan doontaa hadday ardaydan ku fikirtay siday ku gumaadi lahaayeen ummadda ay ku tilmaameen 0.5ka ama danyarka ama dadkaan lacagta lahayn horta waa soo ogaanay wixii dhan ninka lacag ka wato laangaab ma aha Soomaali laandheero walba ka dhala adeer lacaga hadasho waan ognahay in xildhibaanada la gatay marka hadday ku fikireen say ku gumaadi lahaayeen iyo maxay qabteen way xildhibaanada waxay qabtaan ma laha way soo kacaan hoteelada waxay degan yihiin airportka iyo meelaha raaxada badan biilkiisu qaataa bishii hebel baa mushin laga keenay uu vote gareena lacaga loo sameeyay cid uu maqan yahay ma jirto marka waxa ogaanaysaan Soomaaliya derbiga dadka ka dambeeya oo u jeedaan derbiga kani waa bu'aale 8 milyan isku soo noqon doonaa insha Allah haddana waa xilligii salaada laakiin Soomaaliya ha ku mashquulina Kenya qaad badashay iyo waxaa la keenay maxaan dhahayaa malaya lagu bedelay iyo fish baba ka bax seafood haddii lagu bedelana ayaga waxaas waa ganacsato laakiin derbiga arnin Soomaali ah war dadkii isku tilmaamayaan laandheero iyo 4ka iyo 7ka iyo 8ka iyo 2ga ar derbiga nin muwaadin oo Soomaali wixii ka dambeeya xalan laha galo markaas isugu imaanayna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good night.